Assalamu alaikum. Kani waa Jim Browning. I'm Jim Browning. I'm known as a scam baiter, and I hack into scammers' CCTV. Khabiir, computer yaqaan, iyo khabiir dhanka kale networking ku dheereeya, kaasoo caan ku ah caalamka raafista burcadda internetka. Jim ayaa ka shifay xarumo malaayiin doolar ka sameeya adeegsadayaasha adiga daawanaya iyo anigoo kale ah internetka, kuwaasoo malaayiin doolar bil walba ka soo xareeya dad shaqeeya kala duwan iyo qaab kala duwan ay lacag uga dhacaan. Daawad waxa hubaala inaan marar badan maqashay tuugada ama burcadda internetka, kuwaasoo qaab kala duwan kugu soo geli karo, kuwaasoo mararka qaar kaga soo horbaxaya magacyo, goobo iyo ashkaal markaas aadan filanayn noocyada ay yihiin. يعني هل وجه ملهن وجه بدن بيكون سو غلي كران طبعا hadaba Jim Browning oo waraysi uu siiyay jaridada Business Insider ayaan ku soo qadan doonaa i'tiraafaad iyo mataqaana qirasho badan oo soo jeediyay qaabka u target garay ama u bartilmaameedsado shirkadahan oo kale, kuwaas oo halkan maanta ku qaada dhigi doona. wuxuu target garayn doonaa ama bartilmaameedsan doonaa maanta oo barnaamijkiisa ku fashilin doonaa shirkad ama xarun weyn oo tuugo online isugu imaato, kuwaas oo ku yaala dalka Hindiya. waxaa laga yaabaa isweydiinaysid Hindidu mar walba mawduuca noocan ka markay imaado ay Nigerian waliba maxay yihiin ku hormuudkooga ah. jawaabta waan isla ogaan doonaa hadda wax la joogto jaalle. haddaba barnaamijkan wax ku qaadaa dhigi doonaa qaabka uu nimankan dadka u soo gacan geliyaan, qaabka dadka lacagta uga qaataan, qaabka ay u shaqeeyaan, xafiisyo caynka ay adeegsadaan iyo dalka ku kala yaalaan sida yihiin. waliba anagoo maanta case-keena ka dhigan doona kuwa Hindiya ku yaala. haddaba aan bilowno. Jim Browning ayaa wuxuu leeyahay qaybta koobaad soo gacan gelinta dadka dhibanayaasha ee lacagta laga qaadanayo. Jim Browning ayaa wuxuu leeyahay anigoo iska jooga goobteeda shaqada oo caadiyan iska shaqaysanaya ayaa waxa ii soo dhacaya telefoon kala duwan, waxa iga soo horbaxay xayeysiis kala duwan oo marka oranaya qaab kala duwan ku oranaya ama computerkaaga waa cilad ka jirtaa ama sidan way si joogtaan iga soo horbaxay. haddaba wuxuu leeyahay maadaama aan khabiir networking iyo computer bartay ahay, waxaan dareemayaa in dhacdadani ay tahay waxaan oo kale khatar dad badan oo dadka shacabka adeegsada internetka ay si khatarta fahansaneen. haddaba wuxuu leeyahay mas'uuliyad ayaa iga saaran maadaama aqoonteeda aan leeyahay dadka noocan oo kale ah inaan fashiliyo wajidooda bannaanka keeno, dhibanayaasha ay dadka dhibka ku hayaan oo hantidooda iyo xoolahooda waqtigooda qaadanayaanna aan laftigooda wargeliyo. haddaba wuxuu leeyahay kow waxaan ka jaan qaadaynaa pop up ads waxa loo yaqaan, yani xaysiis soo boodbooda ka soo horbaxay. haddii adeegsanaysa Google Chrome, Firefox iyo Google iyo Microsoft Edge oo kale hadda dalaacyaasha kala duwan internetka adeegsanaysid, waxa hubaala markaad internet caadi ku jirtid, web caadi aad dalacanaysid oo warar daawanaysid inay ka soo baxaan xaysiis kala nooc ah. kuwa waa daacad oo gawaaridooda, telefoonadooda, dharkooda waxbay xaysiinayaan, laakiin dhanka kale waxaa arkaysaa marmarka qaashashada dhan kuwa qabsanaya oo ku dhahaya waxaad ku guuleysatay telefoon nooc ugu dambeeyay, waxaad ku guuleysatay shirkad heble inay computer noocaas ku soo dirto, ama waxay ku dhahayaanba cod suuqayna dhiid dhahayo waxay ku leeyihiin computerkaaga waxaa galay virus. haddaba hadda u baahan tahay ku cilad bixino lambarkan soo wac. marka dhacdooyinka qof markii wax ka soo horbaxaan lambarkuna la socdo khatartay leedahayna dib ayaan ka sheegi doonaa qaabka looga taxadari karo. wuxuu leeyahay meelaha ugu badan ka arka kooda hore dadka meelaha ka soo gacan gelinayaan oo ka soo ugaarsanayaan horta waa meelahaas. haddaba wuxuu leeyahay Jim caadiyan dadkan tuugada oo xarumaha weyn iska leh dadka ayagu ma raadsadaan oo ma dhahan cilad ba ku haystaan ku qaban way dadka telefoonada ma hayaan dabcan ilaa ay dib ka helaan. wuxuu leeyahay qofka markii koobaad ee waxaan dadka u soo baxaan malaayiin qof marka u soo baxaan dhowr kun oo kamid ah ayaa wacaya oo u maleyn waxa inay daacad tahay dhabtii ku mid dib soo gaaray. haddaba anigoo iska dhigaya qof ayaga oo kala oo qof caadi dhibano wax badan ogeyn ayaan telefoonkaada wacaa. markii aan wuxuu leeyahay iga qabtaan telefoonka waxa ugu horeeya ay weydiinayaan waxa weeye in aan access u fasaxo inay soo gali karaan computerkayga. dabcan barnaamijyo badan baa jira qof computerkiisa ka foga lagu gali karo, waxa kamid ah barnaamijka caanka ee TeamViewer baa kamid ah. wuxuu leeyahay markay soo galaan xogteena computerka ay iskaga dhigayaan qof caadiyan ku hagaajinaya, yani caadiyan dhowr file bay tirayaan, notification ku daarnaa bay xirayaan, waxyaabo basiid ay sameynayaan ayagoo markaa ku dhaaya hawsha ku xalinay $200 bas baad bixinaysaa si khidmadda kugu dhamaystirno. laakiin wuxuu leeyahay aniga sirteedu waxay ku duugan tahay qof kasta oo computerka ku soo xirto waxaan haystaa xeelad iyo trick aan ayagana u dhaafi karo kooda oo sidoo kale kooda heli karo oo wax walba ka samaysan karo. waana meesha ay sheeko ka bilaaban doonto marka. Do you see any Microsoft Edge or Google Chrome over there? Yes, I can see all my programs. Hey AJ, what's up man? Hey listen, are you gonna answer some questions from me bro? Come on. haddaba wuxuu leeyahay dadka idin leeyahay waa burcad ama internetka tuugada ku xaraysan ma ahan hal iyo laba qof oo gaajo u geysay oo qol fadhiya
waa dad fahansan waxa ay ka shaqaynayaan waa dad erebixinta adeegsanayaan qaabkay kuula hadlayaan dhammaantood u tababaran hadalka ugu horreey ku dhahayaan waxaa weeye mudane soo dhowow waxaan ahay authorized technician qof loo xil saaray ama aqoonteeda leh ee u shaqeeya shirkadda Amazon Microsoft iyo waxay doontaba ha noqotee ciladaadana maanta inaan kaaga shaqeeyo ayaan diyaar kugu ahay hadaladooduna qaabka u dhacayo isma dhahays dadkan ayaa tuuga ah ama isma oranaysa nimankan ay dad iyagu ku dhafo ka dhaqaaq u shaqaynaya waa dad dhabtii shaqaynaya oo wax walba oo shaqadaas loo okeysiin karo oo okeysiinaya kalsoonida marka adeegsadaha ama dhibanaha ay rabaan inay dhacaanna kalsoonidiisa kasbanaya haddaba marka labaad wuxuu noo sheegi doonaa xafiisyada ay ku shaqeeyaan dadkani ma aha saan hadda soo sheegnay dad luuq la taagan taleefon ama meel kafee computer la fadhiya ee waxa weeyaan dad xafiisyo caadi leh xafiisyadan ha u malayn hadday doonaan inay noqdaan shirkado waaweyn oo dhismeel leh ee marka qaar waxay noqon karaan buu leeyahay meesha ugu hooseysa kuwa kireystay qol hoteelka kireystay oo 10 qof ilaa 20 qof computer haysta computerada adeegsadaana badanaa waxa weeye waa computerku ka qadiimsan yahay ama ka dugsan yahay oo old version uu yahay version aad hore qadiim u ah way ay wax weyn kuma sameynayaan telefoon bay ka dhex dirayaan shaashadooda ay arkayaan xogtaasaas ku qaadanayaan maxay qaadanayaan si u shaqeynayaan waa arki doonaan saasna u shaqeeyaan qaarkood wuxuu leeyahay laakiin maanta kiiska anaga uu target garayn doono oo shirkadda Hindiya ku taala waxay leeyihiin xafiis weyn oo dabaq yani waa dad si caadi u shaqeynaya laba xafiis oo isku dhagan weeyaan xafiiska qaybta hore waa qayb agency ah shirkad caadi ah oo cilad bixin computer samaysa sidoo kale tigid diyaarada jirta weeyaan oo markii haddii boolis degdeg ku soo galo meeshaas ay dacwad imaato wadad xafiiskooda wax walba hagaagsan yihiin warqadda canshuur bixinta haystaan ruqsaddiiba haystaan wax walba haystaan shaqo caadi ah dad kasta marro caadi loo shaqeynay way leeyihiin laakiin qolka gadaashiisa ayaa shaqada saxda ka bilaabanaysa oo nimankan qabtaan qaybta gadaale waxaa ku yaal uu leeyahay ilaa 20 computer oo CCTV u xiran yahay kaamirooyinkooda u xiran yihiin oo maamulkoodii wax walba u joogaan kuwaasna halkaas ay shaqada ku qabtaan marka xafiiska markii banaanka laga fiiriyo waxa ku qoran shirkad hebla oo shaqo nooca qabata laakiin qaybta gadaale shaqaalaha dhabta ah oo meesha shaqada dhabta ka socoto oo ninka maamulaha uu maal gashaday waa qaybta gadaal ku taala ay ku shaqeeyaan sidoo kale wuxuu leeyahay ma aha dad computer yaqaan oo la iska soo aruuriyay oo meel la soo fariisiyay waa shirkad wax walba shirkad caadi oo shaqaysato xalaal qudata lagu yaqaanay leh waxay leeyihiin maamulihii agaasimihii madaxii shaqada shaqaalaha xitaa waxay leeyihiin tayadhowrka shaqadii oo taleefanada ay dirayaan oo dadka lagu khiyaamayo waa la record garaya waa la duubaa team baa jira dib u dhageysta oo hubinaya in dadka si fiican loo baaranayay in kale in ninkan hadaladiisu mararka qaar ay shirkadda fashilin karaan in kale in ninkan termiski iyo terminology erebixinada loo qoray siday saxda ahayd u adeegsanayo ayuu kale ka hadlayaa yani dadkani ma ahan hal iyo laba qof meel jooga waxa la cajiibka waxa kamid ah uu natusayaa Mr Jim Browning computerkooda WhatsApp-ka ninka maamulaha loo diray habeenkii ka horeysay bisha baa la leeyahay wuxuu update isiiya bishii asbuuc habeenkii ka horeysay shaqadii maadaama shaqada habeen la qabto wixii ugu dambeeyay la qabtay ayay natusayaan anigana indhahayga waxa soo jiitan la yaabay lacagta meesha ku qoran hal habeen ayaa waxa lagu shaqeeyay ku leeyihiin $14,456 Mareykanka ah hal habeen bas lagu qabto lacagtaas yani maqrib ilaa subaxii oo kale lagu qabto waa la habeen qiyaas marka bishii meeqay sameyn karaan koolasha la dirayna oo telefoonada kala wacay habeenkaas oo la baartayna waa 262 qof bas haddaba xisaab degdeg haddaan sameeyno lacagtaas haddaan u qaybino dadka tirada koolasha la wacay ala shakhsi lacag $60 aan ka yarayn ayaa laga qaado waxa dhici karta mid in wax yar laga qaado laakiin in wax badan laga qaaday laakiin celceliska haddaan fiirino 200 iyo dheeraadkaas qof 230 qof iyo dheeraadka lacagta midka ugu yar laga qaaday waa $60 yani bal fiir meesha shaqada ka socoto ha u malayn hana dhayalsan xafiiska way leeyihiin qaabka u shaqeynayaan xisaabihi wax walba leeyihiin way shaqeynayaan waa dad lacag u socda ma ahan saan soo sheegnay qof laba telefoon email taagan waxay kaloo leeyihiin ayuu leeyahay target iyo tiigsimaad qof walba oo hiigsanayo oo shaqaalaha meesha jooga telefoonada la dirayo ayadoo haddana faa'iido guud u tahay shirkadda haddana shaqaale kastoo ka mid ah lacagta uu markaas la rabo inuu gaarsiiyo ama uu soo xareeyo way xadidanta waa la yaqaanaa tusaale ahaan uu leeyahay 30 gadasho 30 qof hadduu mid qanciyo oo wax ka gado wuxuu helayaa commission dheeraad waliba CCTV-ga yani kaamirada ugu xiran xafiiska ayaan ka arkaynaa ayagoo lacagtooda commissionka dheeraadka ama bonuska la siinayo halka targetkii ama hiigsigii lagu sameeyay aad ka hoos martid ay suurtagal tahay in shaqada ku weydi yani fiiri performance waxa taal isku qiimeynaya iyo karti ma ahan iska soo gal computer magarac taqaana ma ahan waana nin xirfad leh waxna soo xarayn karaa tahay wuxuu leeyahay xafiisadani waxay shaqeeyaan 24 saac 7 maalin 24/7 ay shaqeeyaan yani 7 maalin
habeen iyo maalin waa la shaqaynaya shift kala duwan ayaa la gelaya wixii subax hore markay soo galaan Hindiya saacadda marka fiirisan subax markay soo galaan subaxa hore waxay target gareeyaan oo ay weeraraan dalka Australia ka mid New Zealand wixii jira markii galab ilaa caweysimo la soo gaarana Yurub ayaa weerarana halka habeen barkii markii la gaarana ay markaas weerarayaan Mareykanka iyo Canada yani saacadaha dal walba markaas ugu macquulsan ayaa lagu aadaya marka shaqaalaha soo gala shaqooyin kala duwan iyo dalal kala duwan iyo macaamiil kala duwan ama dhibanayaal kala duwan ayay weeraraan halka maamulaha shaqada iska leh وحافظك هوري عادي أو وقت يركو قاطو مركي ضد مسافر مرتي أصاب وقته كاستمر عادي شغل دوني مركي أصاب بغضان هالكاس يكو قابلا لكن ما أنتي سبقولك بزدت أنت كبضان وحكو قاطع قرار كان دنبع شقدان كلا الوحي قيبتان كلا وحكاها اللي لعجها يسميان بيشوحوا لي هاي لعجها 6 مليون كيرين يسميان حد باللعجها مركي قاعدين وقفك مركي وعان لعت ويدي سنيان وكميتك ستيجنا على دعم بكوس سوينا بنجي قال لعتنا صوش وإليهين ما أهل لعت إنه كوسو واير كريني عم لقوا صدري حوالد إيو مثلا هندي الله صدري دل والبا وحاوتشي وكوح جوني وشغله قابل سن بنجي لوكال أو عادي أو دلك هدي كندا تبنجي كندا كويال هدي أمريكان أمريكان بنجي كويال دلك دون تبع بنجي لوكال أي لعت لقى قاعدني تاس وحي فضيني سام لعك تقفك بنجي إنك كسر بعض بنجي كل كل عضو سي دق واي وحن أجنها مركل العقل قدر يضل والدل كل أجنبي لا دريو وحي مرتا نظام لو يقان سويفت كان maalmo 3-4 bari buu qaadan karaa marka qofka inta lacagtu ka sii maqan tahay hadii ba shaki galo oo bangiga u dacwado lacagtiisa loo soo celin karaa suurtagal laakiin ayagu lacagta markii qofka ka qaadanayaan bangi loo gal maadaama ay qaateen oo maxalli dal ku dhex yaala lacagta isla markiiba team intay baxaan soo saaraya jabto cash u bedelaya wuxuu leeyahay waxaan arkay oo meesha ku arkay sidoo kale gudiyo lacagahan maamula oo guriga kule Skype-ka iyo Telegram-ka sidoo kale xarumo waaweyn ku leh UK Thailand, Bangkok iyo dalal lamida halkaas oo lacagaha lagu diro marka lacagaha dalka yarka laga soo qaado xarumaha waaweyn baa lagu diraa halkaas oo Western Union nidaamka la marsiin karo ma la marsi lacagta markii Hindiya soo gaartana ma aha lacag la soo xaday ee dibadda ka imaatay nidaam kale oo sharciyeysan ayaa lagu soo geliyaa tusaale ahaan oo kale in la jaro invoice oo la dhaho alaabta noocaan ah gadnay lacagtan ayaa naga soo gashay lacagtina si nadiif ah bangiyada ugu soo dhacdo iyadoo malaayiin doolar gaaraysa yani Hindiya xitaa dawladda Hindiya haddii xitaa lacagaha noocaan kale daba gali lahayd qaabka dalka lacag ku soo galayso waa qaab nadiif ah oo sharciga dalka ka dhigira loo ekeysiiyay weeyaan qaybtan wuxuu kaga hadlayaa Mr Jim Brown sidee dhibanayaashan lagu soo gacan geliyaa marka hore qaarkood si lagu soo helaa waan aragnay xaysiis inuu soo jiray qaab kale ay jiri kara wuxuu leeyahay baraha bulshada qaybihiisa kala duwan gaar ahaan Facebook waxa ka jira on kamid ah wiino arkay groups dadka xogtooda la soo xaday lagu gado tusaale maxaan ka wadnaa habeen maalin marka leenahay xogtaada la xadaya kana la sameynaya waxa lagu sameyn karo meeshan aad ka arkaysaa wuxuu leeyahay waxaan arkaynaa marka driving license yani kaarka ruqsadda gawaarida lagu wadayo marka waxaan arkaynaa buu leeyahay guryaha waraaqada guryaha oo sabar loogadii credit card waa midka ugu muhiimsan oo bangiga kaarka xogtiisa dhammaystiran lagu siinaya waxaa soo badan tiimam gada ama kooxo gada oo ka ganacsada ayaa Facebook iyo meelaha kamid ku jira halkan xogta marka qaar waa laga soo qaataa buu leeyahay dadka dhibanayaasha la soo gacan geliyo ma ahan dad waaweyn oo computer wax ka garanayno bas marka waxay noqonayaan dad dhalinyaro ah haba u badnaadeen buu leeyahay dad 80 jirka iyo ka badan ama adeegsiga aaladda internetka iyo qaabka u shaqeeyo wax badan ba ku ogeyn waxa kaloo jira malware malicious adverts wax loo yaqaan yani viruska anaga aan naqaano oo caadiga ah ayaa xaysiis ahaan loogu dhiibaa shirkadaha qaar shirkada ayaa jira malaayiin doolar ku qaata in xaysiis ay ku sameeyaan oo dad ku soo gacan geliyaan waxaad aragteen baan filayaa marka software ama sawir ama video la dhageysid waad ku dhufat wuxuu ku diray website saddexaad oo mararka qaar nooc aragtay aad ahayn asoo ku dhahay lacag baad ku guuleysatay waxyaalo aan loo joogno badan ama waxaan la dag mararka waxa laga yaabaa software aad la dhageysay in software-ka uu ku degin wax kale ay u talagaleen oo computer-ka dib u keenaya oo ku dago waxaasoo dhan ma ahan wax ay shirkadahan iska damceen ama wax adiga sidaas ka soo arimo ahane waa wax la qorsheeyay oo loogu talagalay oo dadka qaar lacag ku bixiyeen in virus intii la geliyo computer-ka internet-ka la geliyo adigana aad ogeyn aad ku dhufatay sidaan ku soo gacan gashay yani viruska laftigiisa iyo xaysiis noocan oo kale ana mar walba waa ku xaysiis lagu bixin karo ee maaha wax adiga kaliya aad doonaysid Brown wuxuu leeyahay hadii ba xaysiis noocaas kula ka soo warbaxo ku dhaw computer-ka virus ku jira iyo wax la mid ah mar walba ogow in hadii lambar la socdo xaysiiskaas ama waxaas qaylinayo dhahayo oo lambar la socdo 100% waxaad yaqiinsataa inuu kan yahay tooga burcada inay yihiin marnaba ha u dhawaan
dhegaystay ama daawade taasna dhegtaada mataqaanaa ku hay haddaba sida caadiga ah su-aashan ku bilownay muuqaalkeenna oo ahayd maxay hindiya ay u tahay dalalka mawduucadan ugu horeeya waxaan ognahay shirkadaha Amazon Facebook Microsoft iyo kuwa la midka ee galbeedka ku yaala badi dalalka reer galbeedka dhammaan waxaa la wada og yahay in dadka customer care-ka u ah yani macaamiisha dadka qaabilsan la hadla ay badi u badan yihiin hindi maadaama ay lacag ahaan jaban yihiin luqadayna garanayaan si kala duwan loo helayo yani lacag hal qof oo shaqaalaha westiga ama galbeedka lagu shaqaaleysiin lahaa ba dhinaca waxa suurtagal tahay in 10 qof iyo ka badan biil looga dhigo lagu shaqaaleysiiyo sidaasna dadka galbeedka jooga mar walba wayba ogaay dhagtooda way la qabsatay qof hindi oo accent culus ku hadlaya inuu mataqaana cilad bixin u sameeyo وهذا مايكروسوفت website كده عادي هداد وعديد marka qofka wax ku qorayo ama kula hadlay waa nin hindi marka haduu markan si tuugnimo kugu soo galo oo luqadu ku heli jirana kugu hadlayo wax shaki kuma galayo hindi waa sababta ugu badan ee mawduucyada ay tahay dalalka hoggaanka u haya hadda wuxuu leeyahay marka computerkayga soo galaan aniga maadaama aan ahay nin lahjad yani American accent ku hadlaya luqada accent American ku hadlaya computerkiina fahansan waa inaan iska dhigaa intaas bay qofka duwan wuxuu leeyahay waxaan adeegsadaa software marka aan la hadlay iga dhigayo qof waa yeelo da iga dhigayo waa marka labaad waxaan diyaarsadaa magac address bank wax kasto ay iga rabaan u weydiin lahaayeen oo been abuur oo waxba ka jiran ayaan sii diyaarsadaa ayuu leeyahay si aan ugu ekaado qof bukaan ah qof dhibana ah oo caadi wax iga qaadan karaan marka tusaale ahaan idhahan faylka sidaas yeelo fur wuxuu leeyahay waxaan qaataa ilaa 30 second ilaa 1 daqiiqo aan qaataa inaan falaarta xitaa dhaqaajiyo si u fahmaan ama uga dhaadhiciyo inaan ah nin waa yeel ah wax badan computerka fahansanayn wuxuu leeyahay markuu ugu horeyso iga shakiyaan waa markuu ugu horeyso telefoonkan ugu daminayaan anigana khadadaan damacsan meesha ka baxayso wuxuu leeyahay qudhooda ma yaraystaan oo luqada ugu hadlayaan markii la hadlayaan ma ahan ama markii aan faylashooda fiiriyo ma ahan dad kala dhacaya ninkii waxbaan ka soo qaadan ma oranayaan ee dhammaan dadku waxay u arkaan customer ama macaamiil xasuuso waxaan waa shirkad dhammaystiran oo shaqeynaysa ayaan sheegnay sidoo kale dadka waxay u arkaan macaamiil caadi ah wax leeyahay macaamiil hebel noocaas baan u qabanay macaamiil hebel cad noocaas ay ka soo xarotay hadda waxaan soo xusnay in kombiyuutarada uu si fudud u gali karo maalmaha kamid wuxuu ku xiranayaa kombiyuutarka ninka maamulaha ah halkaas uu ka sii helayo kaamirooyinka CCTV-ga oo u xiran dhammaantood baasuurkan halka ka soo helayo hadda wuxuu leeyahay markaan kaamirooyinka CCTV-ga aan gacanta ku dhigo muuqaalada dhan arko ay soo wacaan dad 20 qof meesha maadaama ay ka hadlayaan kan ila hadlay ma aan garan karo waayo codkooda ma maqlay laakiin muuqaalkooda ayaa ii muuqda hadda waxaan sameeyaa buu leeyahay shaashada kombiyuutarka ayaa waxa u bedelaa midab aan caadiyan dadkooda adeegsan caadiyan waxaan ognahay buluug baa wada saaran shaashada kombiyuutarka ama sabab dadka u saaran wuxuu ka dhigaa midab orange ah ama basali ah ama pink ah oo dadka baday lagu aqoon marka shaashadeeda ka dhigo ninka shaashadeeda soo gal automatic-kan qolkooda dhexdiisa maadaama shaashadii uu soo galay shaashadiisa xagga waan ka dhex arkayaa buu leeyahay midabka jaana qofka aan la hadlay markaas halkaas ayaan ka arkayaa haddaba wuxuu leeyahay markaan ogaado xaruntii ku yaalaan xafiiskooda qaabka u shaqeeyaan dhammaan waxaan sameeyaa lambarada ay diiwaan gashadeen dadkoo dhan inaan hal u waco una sheego in dadka ay la hadlayeen ay yihiin niman burcada oo aanan dad dhaba ahayn sidaasna ay ku suurtageli karto mararka qaar in lacagtooda ay soo ceshadaan waa haddii lacagtu ay weli bangigooda ka bixin ama isku diyaarin inay lacag bixiyaan wuxuu leeyahay hindiya marar badan ayaa intaan la xiriiray booliska xaruntaas ugu dhow inaan dacweeyo aan ku dadaalaa laakiinse hindiya dalalka ka mid ma ahan cabashooyinka noocan oo kala mudnaanta siisa waxaa dhacday buu leeyahay in hal dhibane oo jooga dalka UK ay kaga dhuntay mawduucan 100,000 oo pound ama gini lacagtooda loo yaqaano lagaga dhacay sidaasoo kalena dhibanayaasha lacagaha noocan oo kala badan laga dhacay inaan tuso adresska magaalada iyo meesha ku yaalaan xarunta ay maanta uu ninkan target gareeyay muuqaalkan ku arkaynana waa mid ku taala duleedka magaalada Mumbai halkaas oo hal dhibana geenayo xarunta booliskana saa intuu ku tago leeyahay lacagaha noocaas oo badan ayaa laga qaatay nimanka tuugada iga qaatayna meeshan ayay ku jiraan wuxuu leeyahay marar badan ayaan sidaas sameynay laakiin markii ugu dambeysay isla keeskan hadda aan tusay wuxuu leeyahay idaacadda BBC ayaa documentary ka sameysay oo aan kala shaqeynayay markii dambe mawduucan soo ifbaxay oo arkeenna boolisku waxay ku qasbanayeen inay mawduucan muhiimad dheeraad siiyaan sidaasna xarunta lagu galay waliba xiritaanka markii raggan la xirayana ana ka arkayno CCTV-gooda oo galaan ka arkayno sidaasna ugu soo gacan gelinayo kulligana lagu qabanayo haddaba dadka markii la weydiiyo sababta ku kaleefto waxa inay sameeyaan waxay leeyihiin anaga Ingiriis ba hore noo guumeystay hantideena xoolaha naga qaateen Taj Mahal tusaalaha ugu yar waxa weeye Taj Mahal qasriga dhan oo ninka jacaylka u dhisay dahabkii ku yaala dhan walba uga yaalay dadka ugu badan oo jeertay waa reer Ingiriis
lacagaha haddaan weligan dhacno dadkan lacag ka qaadno waxay naga qaateen macnawiyan iyo maadiyan ayaa ka badan halka dhalinyarada qaarna ay leeyihiin waxaa noo geysay in shaqo badan oo aan qabanay aysan jirin oo haddii shaqo kale aan heli karno ay jiri lahayd waa ka shaqaysan lahayd marka daawade adeegsade jaalle muuqaalo noocan oo kale markay kaa soo horbaxaan xiise noocan oo kalaad aragtid ogow inaysan ahayn dad 2 qof iyo 1 qof oo meel fadhiya ay yihiin shirkado waaweyn oo wado walba oo kombiyuutarkaaga intay u soo galaan wax beena kaaga dhaadhicin kara wayna jiraan xarumo noocan oo kale u shaqeeya waa sector dhan waa business dhan oo si gooniya u shaqeeya oo lacagaha malaayiin doolar la saga qaato haddaba ka faa'iideyso asxaabtaada jaalayaashaada kugu xiriirsan la wadaag oo mar walba ogeysiya khatarta dhibaatada xambaarsan tahay is arag maqal dambe xiisa badan assalaamu calaykum